Bismillahirrahmanirrahiim. Kulantii wanaagsan daawadayaal. Waa mar kale barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinada oo dhan. Kusoo dhawaada. Militariga Soomaaliya ayaa guula waaweyn ka gaaray dagaal ay kula jireen maalmihii ugu dambeeyay ururka argagixisada ee Al-Shabaab. Militariga Soomaaliya ayaa u muuqday bilihii ugu dambeeyay mid ay deegaano badan ay horay uga qabsadeen ururkaas ay kooxdu ay dib ugu soo noqotay, balse waxaa la sheegayaa inay maalmihii ugu dambeeyay abaabul xooggan la geliyay ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda. Deegaanada ku dhow koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan labada Shabeelle, ayay 2025 ay kooxdu ay kusoo rogaal celisay kadib dagaalla saf ballaaran ay kusoo qaaday ururka argagixisada. Deegaano Tirabeela ayaa ciidanka dowladda Soomaaliya ay hore ugala wareegeen ururka argagixisada ayaa dib gacanta ugu galay kooxaha argagixiso. Militariga Soomaaliyana ay isaga baxeen gebi ahaanba deegaano Tirabeela oo ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, Hiiraan. Dowladda Soomaaliya ayaa dib u abaabushay ciidankeeda militariga. Wararka waxay sheegayaan in ay ka reebtay ciidamada deegaanka ama macaawisleyda. Militariga Soomaaliya ayaa guulo waaweyn ka gaaray dagaal saf ballaaran ay ku qaadeen deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan Sabiib iyo Caanoole iyo Udheegle. Militariga Soomaaliya ayaa boqolaal kooxaha argagixisa ku dilay deegaanadaas inta uu dagaalku socday. Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa la arkayay militariga oo dhaqdhaqaaq xooggan ka wada, gaar ahaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee Gorgor. Militariga Soomaaliya ayaa la sheegayaa in dib u qaabayn loo sameeyay lana bedelay taliyaal horay uga ahay taliyaasha ciidamada militariga, gaar ahaan ururada commandoska Gorgor iyo Danab, kuwaas oo guulo waaweyn ka gaaray dagaalkii 2023 ay dowladda Soomaaliya ku qaaday ururkaas. Deegaano Tirabeela na looga faramuroojiyay, balse khalad baahan oo dhacay si wararku sheegayaan ayaa ciidamada gacantooda waxaa ka baxay degmooyin iyo deegaano Tirabeela ee kooxaha argagixisaduna ay dib u qabsadeen. Balse maalmihii ugu dambeeyay howlgal loo bixiyay howlgalka Duufaanta Aamusan oo uu horboodaya wasiirka difaaca Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa la sheegayaa inay guulo muhiim ah ay ka gaareen ciidanka qalabka sida. Dagaal weyn ay ku galeen deegaanada ku dhow magaalada Muqdisho. Militariga Soomaaliya ayaa hadda u muuqda mid dib boorka isaga jafaya kadib guuldarrooyin waaweyn ay kooxaha argagixiso ay dhabarka u saareen. Waxay u muuqataa inay boqolaal kooxaha argagixiso ay ku dileen Beriire ay muddo toddobaad ay isku hor fadhiyeen kooxaha argagixisada iyo ciidanka commandoska Gorgor. Wararka ayaa sheegaya in militarigu uu hadda u muuqdo mid moraalkiisu dib u soo noqday kadib dowladda oo la sheegaya in ay ku bixiso juhdi Tirabeela. Kadib marar badan ciidamada militarigu ay isaga baxeen deegaano Tirabeela, wasiirka difaaca Soomaaliya ayaa wacad ku maray in uu ka takhalusi doonaan kooxahaas ka dagaalamaya koonfurta Soomaaliya. Ciidanka militariga Soomaaliya ayaa iyaduna goor maanta ahayd duqeyn la beegsaday kooxaha argagixiso ee gobolka Galgaduud, gaar ahaan magaalada Masagawaay, halkaas ay doonayeen inay ku ekeeyaan weerar saf ballaaran. Kadib xog sirdoon oo la helay ayaa la sheegay wararku inay diyaaradaha duuliyaha lahayn ee dowladda Turkigu ay siisay dowladda Soomaaliya ay howlgallo waaweyn ay ka fulisay gobolka Galgaduud, gaar ahaan magaalada Masagawaay. Militariga Soomaaliya ayaa guul taariikhi ah ka gaaray dagaal baahan oo la galay kooxahaas sanadihii ugu dambeeyay. Wararka ayaa intaas ku sheegaya inay kooxaha ay jab weyn lagu gaarsiiyay deegaanadaas. Dhimasho Tirabeelana ay kasoo gaartay siday wararku ay sheegayaan. Militariga Soomaaliya ayaa u muuqda hadda maalmihii ugu dambeeyay mid ceebti weyneed ku dhacday iska meyraya kadib markii oo howlgallo waaweyn ay fuliyeen. Waxaa muuqata tallaabooyin wanaagsan ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Wararka ayaa intaas ku daraya ciidamadu inay isu diyaarinayaan howlgallo kale
ay ku qaadaan gobolada shabeellooyinka ay uga buriyaan kooxaha deegaanada hore looga buriyay dib ugu soo rogaal celiyaan. waxaase wararku ay sheegayaan dadka deegaanka qaar ayba taageersan yihiin kooxahaas oo ciidamada militariga Soomaaliya sidaas darteed ay uga carareen goobo ay horay ay uga qabsadeen ururkaas argagixisada. balse hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo waqtigiisu uu yahay gabaabsi ayaa la sheegayaa inuu isku dayayo inuu sumcad fiican oo soo ceshado kadib muddo sanada oo guuldarrooyin waaweyn oo taariikhiya oo galeen ciidanka qalabka sida iyo dowladaba. wararka ayaa intaas sheegaya inay dowladdu isu diyaarinayso inay deegaanada gobolka Hiiraan ay kooxaha argagixisada ay hore u qabsatay inay isu diyaarinayso dowladdu inay dib uga la wareegto kana buriso halkaas. balse wararka intaas dhiman wararka qaar ayaa sheegaya inay dowladdu ay horay u dayacday deegaano Tirabeela kadibna kooxaha si fudud ay u qabsadeen. militariga Soomaaliya ayaa ciidan Tirabeela ay uga dhinteen dagaalada ay la galeen kooxahaas, balse deegaanadii ugu dambeeyay ciidanka dowladda iska baxeen la arkayay si fudud inay watagayaan deegaano hore naf iyo maalba ay ku baxeen. daawadeen intaas ayuu ku ogyahay warkayni.